بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن oo wanaagsan dhamaan baakhirta hawada nagala soo talkay waa CBA waxaan ka soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono abaaraha soo noqnoqda ee saameynta ku yeeshay deegaanada ay Soomaalidu joogto iyada oo sidoo kalena aad looga soo qeylanayo meelo badan oo dhulka Soomaalida ah isla markaana la sheegay in dad iyo duunyaba ay saameyn ku yeesheen abaarahaasi barnaamijkan gaarka waxa marti ku ah Dr. Ibrahim Maxamed Kaahin oo loo yaqaano Ibrahim Dhuxul waxaan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo استوديو تلفزيون CBA سودو إبراهيم. والله حسنت على مش حاضر معي وهذا هذه المعلومة حسنت هذه بهوية كانت في CBA. إن إبراهيم مو إن تدخل حسودين تروى محي عبارته محي هو قد حكى لنا درس على بلغاها. إن نجحوا إن أرت عبارته إن أدو قاحتين كذا كوبان وحلقوا قاحة إن يتهاي روكي ديجان هيل تشري أو عن هيرين أنا مدافع كله وين كروكي إن حليادي لبدي اختيار سنة كروك الهيج وبيا دايرتي ريفكو روك وينوه أما إنه روب يردو كاسون دتك يدوي يعني ما فعل بينك داق ناس وصارين دتكنا أنا بيا كيل مركا ساسا لقوقها أبغى روحي كمدي المسيبين كان دبيعي كان national disasters كواسو إمك سامية تديوه أدوك كارها waxay gaar u yihiin bariga Afrika oo aad ugu badbaadayna ku soo noqdo ama dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya sida abaaruhu ay caan ugu yihiin innaga dhulka Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida saas oo kale waxa daadadka waxay caan ku yihiin Philippines iyo dhulkaas ka dhacaan Mareykanka soo kale iyagana waxa caan ku ah fire forestiga ama gubashada kaymaha iyo Turkiga sidoo kale Hindiya iyagana waxa ka dhacay duufaanada sidoo kale Japan iyo dhulkaas waxa ka dhacay dhul gariirada earthquake marka deegaanba wuxuu caan ku yahay masiibo dabiici oo ka jirta Ibrahim maadaama roob yaraan ay deed ku qahday muxuu hayeen abaartu ay tahay oo waxa sababa in la suudin kara horta imika waxyaabaha ugu badan sababa abaaraha waxa lagu qeexaa saddex takood waxa weeye kalimaad ka change imika isbedelka cimilada adduunka ku yimid oo saameyn weyn ku yeeshay talabaad waxa weeye air pollution ama dikhowgan hawada oo imika adduunka warshado badan baa la isticmaalaa waliba imika dad waa iska Afrika qaaradan adduunka saddexaad aad loo isticmaalin laakiin labada qaarada kale Aasiya iyo Ameerika iyo aad warshado badan baa ku yahay sibatan Aasiya oo wax soo saar badan marka dikhowgaas hawadii buu galay saddexaad loo aanaya waxa weeye waa jaridda dhirta oo imika kaymo badan oo adduunka ku yaala Aasiya Afrika ayaa sii dabar go'ay Amazon oo iyaguna Mareykanka ku yaala sanad kasta waxa la yiraahdaa intaas wax la jaraa dhirta marka saddexda ugu waaweyn qodob ee badan sabab waa saddexda ee laga xuso waxaan barnaamijka intiisa ugu badan aynu kaga hadli doonaa muxuu ahaye dhinaca xoolaha iyo xoolo dhaqatada saameynta ugu ballaaran ee ay xoolo dhaqatadu kala kulmaan abaaraha waxaynu uga sheegi kartaa artayna taxaw dadkeenu xooluhu inaga waxaynu in la fadhab dadkeenu waxa badan xoolo dhaqato waxaan la rabaa boqolkiiba 8 ay GDP-ga dalku ka yeedha dhaqaalaha xooluhu ama dad ka soo gala dadkeenu xooluhu waa nugul oo inta miisiyada waliba Soomaalidu dhaqdaan ariga la iskuul iyo geela iyo farda ariga iyo geela iyo gamaanka iyo lo'da afartaasay Soomaalidu dhaqdaan waxa uu nugulaa ariga iyo lo'da aad bay ugu nugulin abaaraha saameynta ku yeeshaan bulshaduna adigu saameyn badan bay ku leeyihiin oo dhinacyo badan dadka xoolo dhaqatada ah markay abaaruhu dhacaan ama lagu jiro waqtiga roobaadka waxaa la gudboon in looga baahan yahay inay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin noocyada looga baahan yahay inay sameeyaan horta ugu horreyn marka abaari markay timaado waxaa jira hay'adaha qaramada looga qaabilsan ugu horreyn marka ugu horreeya saddex face bay martaa digniinaha la soo saara oo hay'adda SLA hay'adda FAO hay'adda cunnada adduunka iyadana FAO hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka waxaas oo dhan waxay soo saaraan digniin marka ugu horreeya waxa weeye inay dadku qaataan oo dadka wacyiga dadka la ballaariyo hay'adda dawladda naarad bay u qaabilsan Soomaaliland soo sheegay 2007 marka in la gaarsiiyo bulshada marka ugu horeysa digniin oo la yiraahdo abaar baa soo socotay ka tababarayst marka la waxa weeyaan abaarta inay bilaabanto oo qaybo kamid ah sanadka waddanka imika dawladda bariga laga soo sheegay inay imika bilaabanto oo imika istaan kale iyadana dawladda deegaanka ka bilaabantay sidoo kale Soomaaliya iyadana qaybo kamid ah abaaraha ka jira baan inay bilaabanto saddexaad waxa weeye inay last stage ka gaadho xaaladda ugu dambayso ay dhimasho gaadho roobka markuu iman waayo dadkina abaarti ku dhacdo xoolo qaybeen ay dhintaan marka dambe ay u gudubto dadka dhimashada inay dadka inay ku bilaabaan
markaas saddexdaa stage bay martaa marka hadda waxa ugu weyn waxa weeye dadka in wacyigelin la siiyo talabaad waxa weeye dawladdu inay dadka la soo raro oo la dejiyo meelaha magaalooyinka ama biyo ay ka heli karaan iyagu waxaa jira ayax ku habsaday deegaamada laftooda burdhowtole Ethiopia geeska Afrika oo dhan Soomaaliya Somaliland Ethiopia iyo Kenya intaba saameyn ku yeesho ku degay ayaxaas kale miyuu sabab yahay in abaaruhu uu qayb ka qaato horta waa run waxa weeye waxyaabaha cariyaasha ama waxyaabaha saameynta kula weeye imika dhibaatooyinkan taagan ayaxana sidiisaba waa masiibo oo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta waxay nabi Muuse waxay ku jirtay sagaalkii calaamadood ama dhibaatooyinkeedu ku dhacay reer Bani Israa'iil in Ilaahay ku itixaamay bahalka loo yaqaano loo kastiga maaya marka dhibaato u geystay dalagii qaybo badan oo ay sheegayeen hay'adaha cunnada iyo hay'adaha cunnada adduunka ee qaramada midoobay saameyn dhaqaale fara badan buu u geystay dalagii wax soo saarkii iyo xoolihi oo dadkii la dalag wixii ay xoolo cun lahayn iska cunay marka dhibaato dhaqaale weyn buu leeyahay sidoo kale waxa lagu tagay in hasiinta dabiiciga saabaraha iyo daadka maadaama qaramada midoobay iyo xukuumadaha jiraaba ay baaqi ka soo saaraan waqtiga abaaru ay ku soo fuuleen deegaan miyay jiraan baaqyo iyaduna looga baahan yahay inay jeediyaan waqtiga dadku ay barwaaqada ku jiraan roobku daan si ugu faa'iideystaan oo sida dhibaato ay abaartu u leedahay ayaa imika dadkeena roobku markuu doono maanta aanay dadkeena fursadiyaan aanay ugu lahayn adkays oo dadkii xamil aanay u lahayn oo imika roob hadduu doo hargeysa wadiga arkayo daad baa ka dhacay dad baa ku dhimanaya meelihii dadku waliba ag deganayay marka roobku marka xilliyada roobku markuu dhow yahay oo sida hay'adda meteorology-ga adigu hay'adaha saadaasha hawada marka la ogaado in xilliyada Google ku jiro in biyihii laga faa'iideysto biyo qabatin la sameeyo waa ta ugu muhiimsan ee laga faa'iideysan karo biyaha laga hortagi karo ee dadkii waxyeeleeyeen waxaa jira marka ay abaartu dheeraato waqti roobaad la gala xilli roobaadka la galo waxaad arkaysaa xoolo 40 milyan sheegayso oo geela looda ariga iyo waliba gamaanku oo u bakbaxtay muxuu ahaayay dhibaca roobka ama roobkii uu laynayo marka xilligaas oo kale la gaadho dadka reer guuraaga ama xoolo dhaqatada si ay xoolahoodu uga badbaadaan roobkaas maxaa iyaga looga baahan yahay hortay waan dareemaynaayo abaartu maadaama ay nugeel badan gaarsiisay dadkii dunyadiiba inay ka soo kabashada dambe marka abaartu markay roobku markuu doo inay xoolaha qaar u dhintaan way dhacdaa horaanta hore iga furka roobka marka waxa ugu dhaweey lagu hortagi karaa waxa weeye wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo dadka reemiga wacyigelin siinaysa in dawooyin supplementary caawiyaal la siiyo xoolaha iyo daaq wanaagsan si ay uga soo kabtaan marka dawooyinkaasi waxay noqon karaan qaar ay ku kabanayaan oo awood ugu yeelanayaan awooddoodii soo celinaysa laakiin waxa la siinaya waqtiga marka roobku daamaysa inta jiilaalku ku jiro may waqtiga marka roobku markuu curtay ugu horeeyo waxa la siinaya feed quudin wanaagsan oo caws iyo calaf wixii loo heli karay wanaagsan oo ama marka ay la kulmaan bawal waxa dhacda arigu marka xilliyada imika guba waxa daaqa ugu horeeya soo baxa xoolaha qaar baa ku dhinta waayo neefkii isagoo abaar isagoo ka soo duugay markuu la kulmo nimcadan wuxuu cunayaa ama tan ka badan marka dabeedna oo wuxuu cunayaa calaf fara badan markaas dhibaato ku keenay marka kaasoo kale waa laga xakameyn karaa in feed hore in la soo xareeyo waxyaalaha lagu taliyo waxa kamid ah dadka reer miyiga iyagu way yaqaanaan marka dayrta inay ariga fiidooga hore inay soo xareeyaan soo duubaan si aanu dibra aanay ku dhicin aanay dhibaato uga soo gaadhin nimcada Ilaahay oo waxa jira marka deerto kale waxa dilaaca muxuu ahaayay diirto kale dilaacda may diirto saameyn kuma laha macnaha soo cuni maayo caleen qani ku ah borotiinka caleenta markuu cuno dibra ku dhacaysan taasna waxa jira doctor isla xoolahaasun dulinka oo shilinta iyo marka ay cunaan xoolaha waxa laga yaabaa xitaa in muxuu ahaayay dadku khidmiga marka la shaqeysan qoranayaan shilin baa xitaa xoolaha naga laysay ma dhacday in shilintu xoolaha layso saxa horta dulinku shilintu waxay ka mid tahay inta dulinka kaga nool oogada sare xayawaanka ama xoolihiin kuwaasoo dhibaato badan gaar ahaan ariga u geysta oo dhiigga ka jaqa oo neefka daanu korin oo qaar ku sababa inay ka daataan maqaarka sare canda iyo ay ka qaadaan marka horta reemigu way yaqaanaano horta inta ugu badan waxay qaniinku wuxuu ariga ku dhacaa xilliyada abaara
waayo guga neefkii wuxuu leeyahay awood iskaga difaaco aan hore ugu soo dhacay laakiin marka abaarta ay waxaa kaloo marka qaarkood ay ku soo noqotaa markay xoolayo kala duwan isu yimaadaan marka waxaa jira transponder disease waxa la yiraahdo kan dhaca xuduudaha marka ariga waxa la sheegay meel dhow degmada Faroweyn oo kale ari badan oo Itoobiya ka yimid dowladda soo galay ariga iyo arigii deegaanka hore u jooga markay isu yimaadaan dadkii duuyana waxa laba bulsho meel ku kala noolay markay kulmaan xanuuna dhexdooda ka dhaco oo ay isweydaarsadaan xoolaha iyo dadka marka kuwa laftooda si looga hortagaa waxa mas'uuliyadda ka saaran tahay wasaaradda xanaanada marka xitaa digadu ay ku farabadato xoolo kale way markaas oo dadka dhibiqiyo waxa uu kale dhibicadii waxa soo iyaguna dhibaatay gaarsiin aad sidee bay dadkan xoolo dhaqatada ka shaqeynayna uga gaashaamo karaan maadaama aan iyagu beeraley ahayn abaara horta talada ugu weyn waxa weeye koow dadkana xoolo dhaqatada wacyi badan baa abaarta kama haysta markay dhacdin baa lagu hambaabiraa dadka magaalada iyo kuwa miyiga labada midna wacyi kama haysto oo haddii wacyi badan la siin lahaa oo imika la odhan lahaa qofka calaf badan xoolaha u dhigo dekayd badan qofku samaysan lahaa xoolaha kuwa fiican ee shiris markay abaartu soo dhowday iibi si uu qofkii lacag ku helo oo hadhowta xoolihii daagtaanay ku dhimeen abaaraha soo socda marka waxay uga gaashaaman karaan inay kayd inay samaystaan talabaad xilliyada abaaruhu markay loo sheegay digniinada la gaarsiiyo dowladda ama ay ka dhageystaan warbaahinta caalamka ee kala duwan inay qaataan digniintaas xoolaha sidii ay u yareyn lahaayeen iyo inay magaalooyinka ku soo dhawaadaan qofku hadhow macal dhibaato hadday ku dhacdo dadka maanta ugu ayaanka daran waa dadka magaalooyinka ka fog qofku tuulo ama meelagtiisa hadduu degay si kasta biyo u helaya calafkii kale dadku quudkii kale dadku ku noolaanayana way u fududaanaysaa in loo geeyo maca hadday masiiba dhacdo gurmadkii baa u fududaanaya macnaha marka waa in soo durkana ay magaalooyinka matuulayaasha waxaa jira dadka reer guuraaga ah ama xoolo dhaqatada iyo reer magaalku si un bay xidhiir uga dhexeeyaa markay abaaruhu dhacaan muxuu ahaayey dee qofkii reer guuraaga ahaa ee abaartii ay saamaysay isaga iyo xoolihiisiiba magaalada saameyn intee ku yeelan karaan abaarahaasi horta inagu maadaama nahay bulsho dee Soomaalidu xoolo dhaqataa waliba gaar ahaan Soomaalida dadkana ay u badan yihiin xoolo dhaqato haddii way isku xireen miyiga magaalada oo neefka miyiga laga keenay miyiga jooga marka la soo iibiyo gaariga soo qaadaya siirada dilaalka brokerka ka u kala iibinaya wixiiba way isku xidhay ka hadhow ka sii iibinaya intuu qalo hilibkii bulshada sii gaarsiinay marka saddex siyaabood ayay dhibaato ugu iman kartaa dadka magaalada degan horta inay dhaqaale ahaan ay u saamayso oo wixii faa'iido ah saas oo dhan shaqo ka heli jira ay meesha ka baxaan caafimaad ahaan ay u saamayso dadku marka hore marka dayrta iyo waqtiga gugaal ku jiro dadku waxay heli jireen cad iyo caano caafimaad qaba maadaama ariga ay xanuusteen sidii markii hore u heli jireen cad iyo caano dawaba la waaya xilliga abaaraha hilibku qaaliba noqda weyn arag way ariga weydiyo caanada hadalkooda badda marka oo in yaro geelan ama ariyada magaalada u dhaweey meel lagu dhaqan mooyaan xoolaha miyiga caano laga keenay ma jirto marka magaalooyinka markay abaartu markay dhacdo oo caani way istaagay waxa kaloo sortay labada siyaabood ayay u saameyn kartaa dadka magaalada doctor waxa jira reer miyiga weyn oo naqaanayo intay iyaguna ay dawada u yaqaan waa dhibta oo dhibta xoolaha ama loogu meerayo ama halkii shirkad ka taalo laga daweynayo ayuun bay aad u yaqaaneen markay noqoto daaweynta ama la siinayo neefka xoolaha qiyaasteeda sidee bay ku garan karaan horta dadkeenu horta xalka ugu weyn waxa weeye dadka qolyaha dhakhaatiirta wasaaraddu markay miyada u baxaan ama xoolaha u daweynayaan ama kuwa farmasiidu markay ka iibinayaan way u sheegaan neefka yar intaasi neefka weynna intaasi macnaha kor mar kasta ha kala yaraadaan neefka yar intaad siinaysa neefka weyn intaad siinaysa dadkuna de kolley inta badan dadka midda kale xoolo dhaqatada iyagaaba dhakhaatiirta iyagaaba ka khibrad waayo siday dee xoolahan xanuunsanaya siday ula tacaalayeen ee maalin dheeri mid bahal cunay mid caatoobay oo intuu xanuun ku dhacay dabeedna caatoobay mid yaroo maqasho saasoo kale ama ay ka dhinteen arigii waaweynaa way korinayaan oo caana ayaa wax siinayaan dadka reemiga waxaa noqon karaa xagga dawooyinka inkastoo dawooyinka dhibaatada ugu weyn kaas waxa weeye dawo beri hore soo iibsato meel iska dhigaya maalinta neef wax ku dhacaa dawada hadday doonto way dhacdo ama waqtigeedu way muddo dhaaftay inta kale dawooyinka inta badan waxaa lagu ilaaliyaa heer kul u gaara cadceed iyo qabow toonayna araga meel macnaha heer kulkeeda u gaara in macnaha talaagada kale lagu ilaaliyo laakiin qofkii markuu midacda ama geed bay iyaguna sudhaanba ama meel bay hoosta ka gelin dawadii way isbedelaysaa way go'aysaa tayadii markii hore ay lahayd
xoolaha ay siinayaan sidee u daweynayso u daweyn mayso wax laga yaabo in xanuun ku noqoto marka talada ugu weyn reemigaas waxa weeye dawooyinka ay soo iibsadaan muddo ay haysteen inay xoolaha inaan haysan marka hadday macal arkaan neefka ka xanuunsaday dawo cusub inay soo iibsadaan waxaa jira doctor markay abaaruhu dhacaan biyana la waayo waxaa arkaysaa dad iyo habarta kaaga soo qabsanaya biyo saameyn inta lag biyaga laftooda ku yeelan karaan inay dadka weeraraan ama horta sidaa aan sheegnay marka horeba siday dadku marka abaar markay dee sidii markay lagu jiray Google sidii ay marka Google lagu jiray sidii ayagooda iska jireen sidoo dadka xoolaha iyo dadku ay nimcada u shaqeeyeen ay habar dugaagan kale xayawaanada hilibcunka iyo ugaadh ay iska jireen duur laakiin de markay biyo la'aan markay dhacdo abaari ay dhacaan de duurkii wixii ka jireen ay ka waayeen tan waxay ku qasbaysaa in darkii iyo meelihii dadku ay ka cabayeen ay isugu yimaadaan marka xalka ugu weyn waxa weeye nabiga calaamad saxariis baa ahaa qofka beer qoyo wax siiya ilaahay waa ka abaal maray oo macna ajir baa ugu jira marka in xayawaanada wixii aan waxyeelana lahayn saamka waraabaha dhiderka xayawaanada wixii wax la siin karo biyo meel lagu shubi karo in lagu shubo loogu talagalay ila wax dadkii la nool ugaadha saasoo kala kamid deeradii gorayadii dibidkii waxa macnaha ugaadha dadka duurka ku nool sakaaradii ayaa kamid ah in iyaduna ay biyo hesho haday biyo weydeedu nugeeylo u dhimanaysa marka talada ugu weyn dadka siinayna waxa weey reemiga inay u naxariistaan inay dararkan biyaha iyo barkadaha iyo meelaha laga cabay biyaha xoolaha ka cabsinayaan inay biyo uga tagaan sida xayawaanada kale uga cabaan ugu dambeyn muxuu noqon karaa halka u dambeeya xeega ku noqon karto ilkana ku nabad kala karaan horta la jaxo abaaruhu wasaan sheegno masiibad dabiiciya waligeedna abaaruhu wax tagayo wax dhamaanay ma waligeed dalka saxara ka hooseeya ama dalkeena Soomaaliland iyo Soomaaliya inta dariskooda abaaruhu wax soo noqonaya geeska Afrika hadaba xalkooda laba loo kala qaada mid waa mid markaa taaganay dadka imka abaaruhu ku dhaceen oo kale dadka xoolo dhaqatada miyiga degan sidii lagu la taayay dadka beeralayda midna waxa weeye mid kuwan dadkan guud ahaan siyaasad guud oo qaran ku leeyahay in laga wada qaato horta talada guud waxa weeye number 1 war dadka reemiga ee xoolo dhaqatada dadka beeralayda wacyi ku filan hal siiyo waxa lagu celceliyo marka la idin sheego la abaar baa soo dhow ama in marka la idinku wargeliyo inay digniinta qaadataan kala hawlgashaa si ugu diyaar garoobayda talabaad waxa weeye in laga sameeyo research in laga sameeyo baaritaano madax bannaan oo abaarihii dhacay maanta abaaruhu say u saameynayaan gobolada Soomaaliland bariga galbeedka ku kala duwan xooluhu halkay ku badan yihiin in la sameeyo deegaanada xooluhu ku badan yihiin iyo dadku ee kala durugsan in riigad badan laga sameeyo si dadku waxay ugu baahi badan yihiin waa biyo ay u helaan maday abaar dhacdo iyo hadii kala halka macna biyo ay soo dhawaadaan resource ta ugu dambaysta waxa weeye in laga shaqaysiiyo hay'adda maanta Soomaaliland u qaabilsan abaaraha oo gudiyada iyo waxa ay tayada lagu wareejiyo ay warbixina ka samayso sanad kasta aan halkii laga hadhay abaartu markay dhacday abaarta maxaa sababa deegaamadeebay ugu darantay sidee wax looga qaban karaa waxa soo dhan wax maanta halkan 2 iyo 3 lagu soo goyn kara maaha waa wax marka wixii laga sameeyo baaritaano madax bannaan hadhow tala ururintii la iskula soo noqday lagu xalliyo sidii halkeedu noqonay aad iyo aad ayaad maasantay dawdalkaas waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Maxamuud Kaahin oo loo yaqaan Dhuxul Ibrahim Dhuxul intaan barnaamijkaasi midna ku doona waa kabaradii injineer Gacayro iyo habeentii isku dibadka injineer Idris Dahabi iyo Najxadan anaga la soo dhamaantaan sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.